السلام عليكم كلنتي وعن daawadayaal ku soo dhawaada janalka caafimaadka ee Al-Hurriya warbixin caafimaad oo la xiriirta shaaha liinta leh faa'iidada laga helo qodobka koowaad sun ka saarista jirka shaaha liinta leh ayaa kordhiya awoodda sun saarista antioxidant tan oo jirka ku caawiso sida uu uga saari lahaa wixii aan nacfi ugu jirin waxyaabahan oo halis ku ah caafimaadka wadnaha iyo dadka qaba macaanka qodobka labaad waxa uu daawo u yahay hargabka shaaha liinta leh waxa uu ka caawiyaa yareynta astaamaha hargabka waxa uuna sidoo kale ku kordhiyaa nidaamka jirkaada sidoo kale haddii aad maalinkii 3 ama 2 jeer joogtayso waxa meesha ka baxaya calaamadihii hargabka oo dhan qodobka xiga waxa uu yareynayaa stresska ama walwalka shaaha liinta leh waxa uu ka saaraa sunta dhiigga oo markaa wuxuu jirkaaga siiyaa awood maskaxdaada ayuu dhiirigeliyaa si ay ugu raaxaysato hawsha ay qabanayso waxa uuna meesha ka saaraa walaaca iyo fikirka xanuunka ah qodobka afraad waxa uu ka hortag u yahay cudurrada wadnaha asiiba shaaha liinta leh waxa uu ka kooban yahay flavonoids oo yareynaysa dufanka iyo caabuqa isla markaana ka hortagta saameynta xinjirowga dhiigga ee halbowlayaasha marka cabitaanka shaaha liinta waa hab wanaagsan oo lagu la dagaalamo cudurrada wadnaha ku dhaca qodobka shanaad jeermisyada iyo caabuqyada ayuu daawo u yahay sidaan wada ognahay liintu waa ka hortagga dabiiciga ah shaaha liinta leh waxa uu leeyahay astaamaha antibakteeriyada iyo fayraska sida darteed isticmaalka joogtada ahi waxa uu ka caawiyaa daaweynta iyo bogsashada caabuqyada iyo cudurrada waxa uu caawiyaa habdhiska dheefshiidka shaaha liinta leh waxa uu fududeeyaa dheefshiidka caafimaadka iyada oo loo marayo saameynta xasiloonida tan waxa ugu wacan inay baabi'iso sunta iyo waxyaabaha qashinka ah waxa ayna u saamaxaysaa jirkaaga inuu soo nuugo waxyaabo badan oo waxtar leh oo ku jira aashitada ku jirta liinta waxa ay kaalmaysaa dheefshiidka waxa ayna caawisaa in la baabi'iyo dhagaxaanta keliyaha halka aashitada loo yaqaano ascorbic acid ay tahay antioxidant dabiici ah oo ka hortagaysa cabsida xanuunka caadada dumarka ayuu yareeyaa shaaha liinta leh waxa uu sidoo kale tirtirayaa dhibaatooyinka sunta ah ee suuxdinta waxa uuna yareeyaa xanuunka inta lagu guda jiro caadada dumarka waxa uu kordhiyaa shaqada maadada insulin jirkeenu waxa uu u baahan yahay insulin si loogu bedelo glucose-ka ama sonkorta tamarta shaaha waxa laga helay inuu kordhiyo waxqabadka insulin iyada oo loo eegayo daraasad cilmi baaris ah oo ay sameysay joornaalka beeraha iyo kiimikada cunnada isla faa'iidooyinkaasna waxa bixiya shaaha liinta leh sidoo kale waxa uu fududeeyaa nuugista maadada birta ah shaaha kaligiis guud ahaan waxa uu hoos u dhigaa nuugista maadada ironta ama birta waana sababta dhaqaatiirtu u dhahan hadiiba aad cunto beer ama keli ha ka daba cabin shaah sababtoo ah waxa uu hor istaagayaa nuugista ironta ku jirta beerka iyo keliyaha si kastaba ha noqotee marka shaaha liinta lagu daro waxa uu yeeshaa vitamin C kaas oo xoojin kara nuugista birta hilib la'aanta sidaa darteed ku darso liinta shaahaaga waxa ay ka hortagi kartaa saameynta xun ee shaaha qodobka xiga waxa uu tirtiraa finanka wajiga kulligeen waan ka warqabnaa waxtarka vitamin C u leeyahay maqaarka bini'aadamka liinta ayaa leh vitamin C badan oo ka caawinaya yareynta finanka iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee maqaarka gudaha marka isticmaalka shaaha liintu waxa uu ka gacan siinayaa la dagaalanka finanka iyo xanuunada kala duwan ee maqaarka soo gaara qodobka xiga waxa uu ka hortagaa kansarka shaaha iyo liintu labadaba waxa ay leeyihiin astaamo antioxidant oo adag tani waxa loo aaneyn karaa jiritaanka polyphenolska shaaha ku jira iyo xaddi badan oo fitamiin ah antioxidant ah oo ku jira liin dhanaanta daawada antioxidantiga kaliya kama hortagayso waxyeelada unugyada caafimaadka leh laakiin sidoo kale waxa ay kor u qaadaan dhimashada unugyada aan caafimaadka qabin waxa ayna ka hortagaan koritaanka unugyada kansarka astaamaha ka hortagga kansarka ee shaaha liinta leh waxa uu yareeyaa fursadaha kansarka maqaarka kasokow liin dhanaantu waxa ay ka kooban yihiin maadooyin loo yaqaano limonin badan oo ka caawiya la dagaalanka kansarada ku dhaca afka sanbabka naaska iyo caloosha iyo sidoo kale kansarka xiidmaha adigu ma cabi jirtay shaaha liinta leh mise jeceshahay horeyse ma ogeed haddii aad cabi jirtay faa'iidadan inuu ku leeyahay haddii aad ka faa'iideysatay mowduucan fadlan gaarsii asxaabtaada oo u shargaray waxaa qoray Dr. Amiin warbixintii caafimaadka ee la xiriirtay faa'iidooyinka uu leeyahay shaaha liinta leh ee aad ka daawaneyseen channelka caafimaadka ee Al-Hurriya
halka ayaan kusoo gabagabaynaynaa. haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo subscribe saaro channelkeena si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan xilli walba halkan kusoo baahino. mahadsanidin. ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan cayrinayn